بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مدنيال iyo marweyn waxaan ugu horeyn salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ee hore oo ah tababarihii nolosha siyaasadeed oo soo tababaray muddo 5 sanadood ah Ahmed Maxamuud Silaayo. madaxweynihii ka horeeyay Daahir Riyaale Kaahin oo ahaa madaxweynihii bilaabay inuu doorashada bilaabo kuna magac iyo maamuus leh inuu xilka si degdeg ah doorasho awgeeyay. waxaan mahadnaqayaa oo ka hambalyeynaya golihii wasiirada ee xukuumadda Ahmed Maxamuud Silaayo oo dalka 5 sanadood hawlo laxaad leh oo horumar ka qabtay suuqada galiyay inay doorashadu si nabad ah u dhacdo. waxaan ku hambalyeeynaa madaxweynayaashii ku-xigeenadii hore oo saaxiibaday ah oo ugu horeysiinayo Mujaahid Xasan Ciise Jaamac oo aanu isku waqti iyo da ahayn maantana aan aad ugu faraxsanahay inuu ka soo qayb galay. madaxweynihii hore Cabdiraxmaan Cali mujaahidkii weynaa oo isaguna hore dalkan uga soo noqday madaxweyne ku-xigeen iyo Sheekh Axmed Yuusuf Yaasiin madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka. waxaa kaloon halkan ku soo dhaweynayaa aad ugu mahadnaqaynaa golaha guurtida gudoomiyahooda oo oday mujaahid rugcadaa ah oo in badan dalkan soo shaqeeyay, gudoomiyaha golaha wakiilada Baashe oo in badan soo hogaaminayay golaha wakiilada. waxaan si gaar ah kaliya laabo u soo dhaweynayaa saaxiibkaygii ila tartamay ee ii haneeyay ee laba goor oo hore dalkan intuu ku tartamay haneeyay Faysal Cali Xuseen Faysal Cali Waraabe. waxaa kaloo hambalyeynaya meelu jooga baan soo dhaweynayaa saaxiibkayga ila tartamay oo dalka dibadda kaga maqan mudane Cabdiraxmaan Cabdulaahi Cirfu oo isaguna ogolaaday natiijadii iyo xisbigiisaba. intaa kadib waxaan aad soo dhaweynayaa madaxda inoo timid ee dalalka jaarka ah iyo kuwa fogba. waxaan ugu horeysiinayaa saaxiibadayda ama aan isugu dhawanahay af iyo diin iyo dhaqanba ee jamhuuriyadda Jabuuti ee uu hogaaminayo saaxiibka Cali Xasan Bahdoon. waxaan soo dhaweynayaa madaxda ka timid Ethiopia dowladda federaalka Ethiopia dhammaantood oo si gaar ah u soo dhaweynayo dowladda deegaanka Soomaalida oo af iyo dhaqanbooda aanu isku madahay oo hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenku iyo dowladda federaalka Ethiopia guud ahaanba wasiirka gaadiidka Axmed Shide oo naga mahadnaqayna saaxiibtinimada dhaxaysa. waxaa kaloo aad soo dhaweynayaa dalka Kenya gabadha uu hogaaminayso waftiga xildhibaanada ah oo ku hambalyeeyo inay tahay gabadhii koobaad Safiya ee noqotay xildhibaan dalka Kenya Soomaaliyeed. waxaan leeyahay maanta dalalkii Soomaaliyeed qaybtii Jabuuti qaybtii Ethiopia qaybtii Kenya Somaliland waxay naga dhigan maanta qaybtii Muqdisho oo ay ahayd iyagoo qaranka Soomaaliland ictiraafsan ka soo qayb galaan. aan filayana dhawaan ka soo qayb gali doonaan oo aanu iskaashan doono oo aanu dad iyo dhaqanba wadaagno, laakiin ay arintayadu suurtooday inay mid noqoto duruufii dhacay awgeed. deetana nin waliba dowladdiisa iyo qarankiisa gaar u dhistay iyagana waa u dacaynaa dhibaatada ka baxaan. iyagana waxaanu ka rajaynaynaa ugu hambaliyaan wixii talaabo horumaray aanu samaynay. intaa ka bacdi waxaan si kalgacal iyo xishmad baan u soo dhaweynayaa wufuudda inooga timid dalalka Yurub, dowladaha EU-da ama Yurubta midowday oo ay hogaaminayso gudoomiyaha ambassadorka EU-da ee fadhiya Kenya oo saaxiib dhow la ah Somaliland. iyadana waa soo dhaweynaynaa iyo ambassadorka la socdaba waan uga mahadnaqaynaa taageerada inoo galaan. waxaa kaloo si gaar ah u soo dhaweynayaa oo muddo karnimo safiirka UK oo halkan 3 jeer noo yimid balaha bil gudaheed
oo noo muujiyey inuu naga xigo kuwa kale sida uu noogu dadaalay iyo ballanqaadkii lacageeda maanta oo halkaa ka muujiyo ku taageeraya somaliland si kaliya allah baan ugu soo dhawaynaynaa waan uga mahadnaqaynaa dowladda UK deeqdaa ugu horreysay ee halkan kaga dhawaaqeen dhammaan mudakarka somaliland iyo madax dhaqameedka nooga yimid dowladda Ethiopia iyo Djibouti ba aad iyo aad baan soo dhawaynayaa si gaar ah waxaan soo dhawaynayaa ugaaska guud ee beelweynta Ciise Mustafa oo maanta markii hore soo hambaliyeeyay oo telefoonka igala soo hadlay haddana martiqaadkii ku yimid waqtigiisii soo dhawo Mustafa garaadka beesha inta leeg adigoo qura Soomaali ka jira wax beerinta la garaado ah intii kala tafraaq waa ku dhacay Allah ku barakeeyo soo dhawo inta markaan dhaafo soo dhaweynta iyo mahadnaqa maanta anigoo bulshada iyo madasha bilana inta la hor taagan waxaan dareemayaa culayska iyo miisaanka ay leedahay xilka la idhaariyay ee Somaliland xilka la idhaariyay ee Somaliland culayska uu leeyahay waxaan xusuusanayaa wixii loo soo maray kuwii u dhintay naftooda u horay kuwii ku dhaawacmay kuwii maalkooda u horay kuwa ku agoobay iyo kuwa ku goblamay ee maanta nool iyo kuwa dhintay sharafta iyo maamuuska aynu maanta ku jirno inagu qadarinayaa waa dhiiggii dadkii Somaliland u soo huray taariikh ahaan marka laga soo bilaabo ilaa daraawiish ilaa SNM Somaliland waxay leedahay taariikh dheer oo mar walba go'aanimada ay u dagaalanto hadduu isticmaar yahay iyo hadduu cadow ku soo duulay yahay iyo hadduu maamul xun oo qabsadaba yahay taariikhdu waxayna furaysaa Somaliland inay leedahay taariikhdii ugu horreysay ee si miisaan la ula dagaalanta isticmaalkii caddaa ee Afrika soo duulay daraawiishtii Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan waxay qaadanaysaa taariikhda koow cidda qura ee Afrika ee diyaaradda u duqeeyay waxa sii muuqda raadkeedii waxa ku xigay taariikhdii ahayd Sheekh Bashiir iyo culimadii ka dagaalantay gumaysiga ee jirkooda iyo naftooda u horay waxa ku soo xigay kuwii siyaasadda ku soo dagaal galay ee xisbiyadii SNL SNM NUF iyo USB iyo dadkii hogaaminayay oo maanta badalkooda inaga hooseeyaan waxa ku soo xigay SNM waxaan doonayaa halkan inaan ka caddeeyo dad badan oo taariikhda ama wixii jiray si qalad u fahamsan walaalayaal Somaliland ismay dilin SNMna Somaliland ma dagaalamayn taliskii macangaga ahaa ee naxariista darraa ee Soomaaliya oo dhan afeeyay markii aan la wada dagaalamayn dhexdeena isaga khilaaf ka abuuray oo laga yaabaa inanka joogay Sool in laga dhaadhacsiiyay SNM gurigaaga iyo reerkaaga weeraraysa dabeetana uu daafacayay wuxuu la mid ahaa kii SNM ee ka daafacayay Soomaaliya oo dhan dhibaatadii ku ahayay taliskii afweyn inanka Boorama joogay ee la dagaalamayay SNM uu haysan nacayb uu qabay SNM iyo cadaawad ka dhaxaysay ee waxay ahayd balaaye iyo aafa uu ka dhaadhiciyay taliskii Siyaad Barre oo ahayd SNM waxay ku soo duulaysaa dalkaaga iyo dhulkaaga iyo caruurtaada duwarkaaga isaguna wuxuu ahaa nin la mida SNM oo daafacayay dad Somaliland isaga oo warkaya inay cadow ku yihiin shirkii Boorame waxaynu ku heshiinay oo lagu qoray ahdi qarameedkii in Somaliland iyadu aanay nacayb iyo colaad su dilin in lagu dhaxabuuray masiibada dhacday sidaa darteed kii ka dagaalamayay laascaanood iyo kii Boorama ka dagaalamayay iyo kii SNM inay intuba isku xuquuq iyo karaamo iyo sharaf yihiin oo ay maanta Soomaaliya daafacay oo kooda dhintay iyo kooda dhaawaca iyo kooda maanta jooga ay ku noqon doonaan ahdi qarameedka Somaliland mid siman oo ay wada leeyihiin oo aanu midna mid cadow iyo xumaan u ahayn oo taariikhdu wada leeyihiin halkaas laga soo bilaabay Somaliland halka hadii laga soo bilaabay intii ka dambeysay ogeyn intii aynu soo maray ee shirraha ee aynu dhamayn gurmadkii uu soo galay inay Somaliland midowdo ee uu Siyaad Barre ugu bareeray garaad Cabdilqani ee uu ku yimid balay gubadle ee uu halka ka soo itibiyay waa kii nabadiisu ku dhamaatay Burco iyo Boorame waa tii lagu dhisay 97 dowladii laba markii lagu doortay Maxamed Xaji Ibrahim Cigaal gurmadkii uu ka yimaaday sheekhi halkan quraanka uu akhriyay Sheekh Cabdullaahi Cali Joor
أي وذا السعودان عبد الرحمن أو علي ومجاهد كي وينها يا سلامة وكوي الله وضع عيدان اسمه كان الدراء أنا بدي فوق هذا كولاري هل كان بقات كي أي كان قادين إسقى يقول تلا سعودي يا شيخ موسى جواد لهيد يا شيخ أبو بكر لهيد يا أنت رضا لهيد يا الدمات هذو سوق ما حتى قردوفين كي لحدينا واتين كسو قبل شركي بورمي ولا لا هل كي أنو سوق لي من نوادي إيوه تيسيا سد أنو كسو جوريسني واتما تشرف عالم كينو يمد عالم كونه كينو ما تنايو إن بقى يبتدي كسوقاتي وحنا بلقاضية إن أنا أرو تاريخ ذا إذا كوه جامية وسيدا يقصوه جاميين عبد الرحمن محمد أحمد علي محمد حاج إبراهيم عقال ظاهر ريال كارين إيا أحمد سيلان يوم أنتوا قدام به وضادي سومال لان قرن مدمر إيا ديسك هذا أيان هين دونا وإن شاء الله وش السنة كبعدي إيا صاود إنسان عدي لو دورتين ودي بدورنا تاسواو سنة سومال لان كدحية أنت هو حنوجد بيه سومال لان وحا أي صومر تقدر صوري ستي أي كصوب بلوذي كل بتولي يشر وحا أي دورش صوغ شيء أي تي ما أنتوا قدام بيسي سومال لان كلي جد باصا ميسي وحي نجع ويشرين وحير مويانها إذا يو دق بحياش قرب بحياشو حاجة بيها إيو عافمات كإيو دولاديس كإيو سكيورتي كإيو تن قدام بيسي دورشدان لما أنت بقول كي بس ديتن وحب بحياة سومالان هذا العقتاي هذا قوتاي هذا يسوق الغاشتاي هذا إلانتاي وحن ما حد جاره قلنا قياه وإلهي كابر مريء كم أمانة تاريخه كم مدن قد يقدر شوي كقرك وح أمان كم مدن وهيرجري وحضورنا صاحري وأمان كان إلهي عيد ما تقرك فيك الدون وإنه أبار يقلد وهاينا وإننا الآن تقولنا ما تلقى فردين دور شانا أينو قادين وأين حصوصنا دورنا قدر الدون هذه إلهي هذا وحنوش يجينا عالم كنا ندين نقول هاي وأقوال كافريه إلى عدين دين مثل وأم بانك الدنيا وين نعاونين وأم بانك أفريقيا نعاونين وأن دولتها عربية نعاونين وأن قوى مسلمين نعاونين دور الشغل يدي هؤلاء إلهي يوم الصومال بس كنت الشغل ولا لها صومالية شوقة حمر وحنوش يجينا إن اسكت الشغل أو وضع الرعان أو يكبحان كنت رسلانتا دولة الشيء إذا إيجا هؤلاء هذا سياسي أو قبرين أنت وحكي قد بيا أرارت سوماليلاند iyadoo intaas oo dhan soo qabatay iyadoo waxa soo guura gaadhay haddana waxay hor yaallaan maanta dhibaatooyin u baahan inaynu wada jir ku maarayno oo aanu xisbi gaarina maareyn nina kaliya aanu ku maareyn waxa kamid ah cimilada isbedeshay ee abaaraha dalkeenu ku noqdeen xoolo yaraadeen waxa kamid ah sicir bararka iyo lacagteena hoos u dhacday waxa kamid ah qabiilka oo aad moodo inuu qarankii la dagaalamayo oo ka soo horjeeda oo ay wada socon kari laayihiin waxa kamid ah shaqo la'aanta hawlahaas oo dhan waxaanu ku maareyn karnaa midnimo waxaanu ku maareyn karnaa wada tashi haddii aynu soo qaadno dhibaatooyinka inoogu xoog weyn oo kuwa dhaqaalaha oo ay ka mid tahay lacagteena hoos u dhacaysa oo keenaysa saboolnimo iyo dhalinyarada shaqada la mustaqbalkeena ah waxaynu ku maareyn karnaa walaalayaal innaga oo marka hore qalbiga iska aamina oo dalkeena wada dhaqana oo ka baxana qabiilka iyo deegaanka iyo tuulada waxaanu kaga bixi karnaa iyada oo aynu ganacsatadeena dadka hal abuur kale ee shirkadaha waaweyn inoo sameeyay iyaga oo caalamka in ictiraafsanayn oo aan deyn ka qaadan baananka oo aan la xiriirsanayn baananka sharciyad ay ertigu furaan lahayn iyo hablaha inoo sameeyay dhaqaalaha inta la iyo horumarka iyo qaran iyo xukuumadda markay labadoodu iskaashadaan wada shaqeeyaan ee hanteena isugu geyno waxaanu qaadi karnaa tallaabo weyn oo aynu shaqalaanta kaga baxno oo lacagteena kor ugu qaadno oo aynu dhaqaalaheena ku dhisno markaas caalamku wuxuu caamilaya inoo iman doona waayo ninkii dhisa aynu wax la taraa taasi waxay u baahan tahay fikir iyo hawl waana qorshaha dawladda aanu dhisano haddii ay ku dhaqaaqayso waxaynu kaga bixi karnaa faqriga iyada oo sidii sheekh cabdullaahi halkan ka sheegay aynu muruqeena iyo dhulkeena aamino lama arag caalamka dad dhan oo yidhi waxba beeran maayo haddii aan cuntada la beerana waa garow iyo arbakhiyo ma cunno oo waxaanu doonaynaa cunto annagoo annaan beeran
oo laga yaabo caafimaadkeeda iyo tayada cuntana aan la garanayn oo ay ka muuqato maanta cunto dalka taala ee laynoo soo waaridaa dhallinyaradeenna koraysa say wakaadeen haddii aynu markaa dhulkeenna beeranno inu cunteedan la soo baxno oo xooggeeda aynu leenahay walaalayaal gaajada in badan baynu ka baxleen iyo sicir bararka iyo shaqala-aanta dalkeennu maanta wuxuu u baahan yahay waa 452 kun oo tan oo cuntaa oo ah midho waxaynu haysanaa ilaahayna siiye xoolo oo brotiinka maanta adduunka o dhan laga laayahay waxa ilaahayna siiye kalluun oo ayna midna la soo bixin haddana carruurteena maanta nafaqa darra ka muuqata ayayna waa tamar la'aan waxaan u baahannahay inaynu xoogga u jeedsano haddii gobol waliba 15 kilomitir kaliya bal gobolkana Sanaag intuu leeyahay bal inta biyo marta eeg gobolka Sanaag haddaynu 15 kilomitir kaliya beero walaalayaal oo aynu u jeedsano fadhi ka baxna ragga muruqale dalkeenu cunto ku filan u heli lahaa maanta waxay nagu ceeba inaynu ka soo iibsano dalalka jaarkeena tamaandhada wax kale ba iska daayo inagoo dalka intaa leeg iyo biyaha intaa leeg hela dabcan waa run biyuhu way yaraadeen laakiin waynaynu helnaa hab casri ah oo xoolaheena aynu hadda u dhaqno xoolihii guurayay ee soconayay ma soconayso abaaraha dhacay iyo cimiladiisa darteed inuu helo dhulkii uu daaqi jiro wareegaysto xoolaha in la dejiyo oo calaf loo abuuraa wax weyn ma aha waxaynu haysanaa dhakhaatiir xoolaad oo fara badan oo aqoon leh laakiin waa in laga dhagaystaa oo waddadooda raaca maalqabeenku waa inuu maalgeliyaa xoolaha nool oo ah waxa dalkeenna ku habboon ilaahayna siiyey iyo kalluumaysiga ku dheeraan maayo hawlaha inoo yaalla oo aan doonayo inaan wada jirkooda gallo haddaynaan wada jirkooda gelinna saas baynu bahnaanaynaa farquli fool ma dhaqdo dadkuna wax wadaqabad ku rooy waxaan u gudbayaa doorashada iyo xanafteedii waxaan diyaar u ahay oo tallaabooyinkeeda inaan qaaday haddana aan wadaa waxa lii wixii xanaaf ka dhacay doorashadii inaan bogsiiyo oo weliba aniga laygu jiibsado oo xisbiga kulmiye lagu jiibsado oo walaaladayada wax tirsanaya aanu qaboojinno iyagana waxaa laga rabaa walaaladayada wax tirsanaya inay gar qaataan inay gogasha soo fadhiistaan waxbaan kaa tirsanaya kuwa soo fadhiisan maayo waxbaan kaa tirsanaya gar qaadan maayo waa dhantiin madax dhaqameed iyo odayaalyadeedu awnamayna qabataa diyaar baanu u nahay inaanu goob walba ugu tagno waa u tagnay xaruntoodaan ugu tagnay waanu wada shirray madax dhaqameedkooda waanu heshiinay waxay igu amreen waan qaatay waana la arki doonaa aniga oo weliba ogol dadkii foodka badan ee guusha keenay inaan ku jiibsado iyaguna ay dul qaataan waxaanu ka sugaynaa walaalada iyaguna ay gar qaataan oo nabadda ku yimaadaan waxaan uga gudbayaa waxaan laga sugayaa dawlad cusub inaan soo dhisno dawladda waxaan doonayaa inaan dhowr qodob ka taabto mabaadida ay ku shaqayn doonto horta xilku ma aha marka laysu magacaabo madaxweyne ama wasiir meel qofku ku baraaro oo ka taajiro oo dadkiis ku qabsan noqon mayso dawladdaanu soo wadno waxaan ballan idinku qaadayaa qof kasta oo xil qabta oo golaha wasiirada ama hay-adaha dawladda ka mid ah hawsha loo dhiibay in lagula xisaabtamo saacad iyo maal wixii loo dhiibay iyo hadday waqti tahayba waxaanu idin mala qaadinaa inta qof bini aadmi kari kara inaanu ku dadaalno sinaan iyo cadaalad oo dadka iyo dalkaba aan u sinaano sidii halkan lagaga dardaarmayay waxay noqon doontaa inay noqoto dawladda la dhis doona iyo shaqaalaheedu in dadku xilka qaranka ay ku kala sarreyn karaan madaxweyne wasiir